مسؤولين ترى بدن oo ka mid yihiin agaasimaha gobolada bariga ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada isduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer xildhibaano iyo gudoomiyaha heer qaran ee ururka Now ayaa ka qayb galay munaasabadda naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan oo xalay ku soo bandhigayay buug la yiraahdo Baadikoob saaxiib oo ay qortay gabadh dhalinyaro ah oo la yiraahdo Ifraax Umar Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada qorayaasha ee reer Soomaaliland munaasabadan ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay mas'uuliyiinta naadiga ee halkaraan oo ka sheegay sida ay u dhiirigelinayaan da'yarta ku hawlan arrimaha qoraalka iyo suugaanta iyadoo halkaasna buugeeda ku sharaxday qoraa Ifraax Umar Jaamac waxa jira saaxiib wanaagsan saaxiib xun mid aamusan marka saaxiibka uu baadigoobaya waxa weeyaan saaxiib kasta oo wanaagsan doonaba ha noqde qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa saaxiibka wanaagsan faa'iidooyinkiisa sida lagu heli karo astaamaha lagu garto qaybta labaadna waxay ka hadlaysaa saaxiibka xun iyo siyaabaha looga badbaado astaamihiisa dhaawacyada iyo saameynta uu geysto maanta dunidan aan ku noolnahay waxa jira dad qaar ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad kale oo weyn ha noqdaan dad ku saaxiibo dan gabadhii waxa munaasabadaasi kelmad dhiirigelin iyo dardaaran ah ku soo xiray mas'uuliyiintii madashaasi joogay iyaga oo ku dhiirigeliyay dhalinyarada qoraalka iyo suugaanta waxa aad iyo aad dhiirigelisay caawa oo farxadii ah inta da'da yar leh ee u dhalatay gobolka Burco ee soo qortay buugan aadna waxaan u hambalyeeynaa ururkan halkaraam ee dhiirigelisay dhalinyarada waxaan ka salaamayaa soo dhaweynayaa Ifraax Umar Jaamac oo yaro dhalinyaro oo aad iyo aadna aan ugu faraxsanay soo dhaweynayno runtii Ifraax weynan daayar waxaanu berigii hore haysanay qoraayada rag waaweyn oo jaamacadiyo duniya adduun ka soo baxay baynu garanaynaa laakiin ina yaro dhalinyaro oo secondary sanadka ka baxday oo buug qortay aad iyo aad baynu ugu faraxsanay Ifraax waanu baarigaya ma sha Allah horta saaxiibka wuxuu ku noqon meena waxa la hablaha yar soo korayay gobolka Togdheer waxay yeesheen qoraaba yeesheen waxay yeesheen inantan abwaan halabuur bay yeesheen doonayeen ku biiro hablaha abwaanada ah ee ama qoraaya ama qoraaga ah in hablaha aad wacyi gelin wax raadiyo waxaan ballan qaadaya hablaha inta awoodeeda karaankayga nin dambe aan caawin ee hablaha halabuurka inaan la shaqeeyo hadii la ka dhigo waxaana gunaanadkii munaasabadaasi su'aalo lagu weydiiyay qoraaga buugan iyadoo mid uga jawaab iyadoo sidoo kalena buugaag ay maktabada halkaraan ugu deeqday ku wareejisay mas'uuliyiinta naadiga ee halkaraan Shabcaan Cabdiraxmaan Abukar Somali News Burco.